waa hubaal in haddii lagu weydiiyey company lagu magacaabo TENCENT aad weligaa maqlin waxa uu yahay iyo waxa uu qabto laakiin ma ogtahay in companigan uu yahay mid ka mid ah kambaniyada ugu waaweyn dunida sidoo kalena uu ka weyn yahay shirkadaha Facebook iyo waliba kuwa kale oo badan oo aad taqaano hadaba sidoo companigan uu kontroolaa guud ahaan wadanka China asagona kontroolaya qaabka ay wada hadlaan qaabka ay u adeegtaan iyo waliba xitaa qaabka ay si maalinle u noolaadaan sidoo kale ogsoono ama ogsoonaanin laakiin waxa xaqiiqo ah inaad isticmaasho TENCENT sabab la xiriira inay kor ka maamusho guud ahaan shirkadaha gameka aad ciyaarto iyo waliba boqolaal company oo ka baxsan China sidoo kalena ay maamusho hadaba muxuu yahay companiga laga yaabo inaad weligaa maqlin ee ku bilowday kaliya $1500 sidoo kalena isku bedelay boqortooyada bilaayiinta dollar iyo mideeda kale waa maxay siraha waalida ee u Qarsoon companigan hadaba igula soo dhaw muuqaalkan waalida ee ku saabsan shirkadda TENCENT iyo waliba sida ay wax walba ku bilowdeen hadaba ka warna hadaan ku sheegay in ninka dhisay boqortooyadan ay isticmaalaan balaayiinta qof waqtiyada kamid ah wiil yar oo iska degan sidoo kalena ka soo jeeda tuulooyinka China waliba kuwooda ugu faqiirsan hadaba wiilkaas yar ayaa lagu magacaabay Dhan kaas oo dhashay taariikhda markaad 1978 waliba tuulo yar oo lagu magacaabo Shantao oo ku taali wadanka China sida yaataba yaraanka ma ayaa waqtigiisa ku saaday waqti ay China dhanka isbedelka u socotay laakiin nasiib xumo tuuladiisan uu ku noolaa ayaa mid aad uga fogid magaalooyinka waaweyn midanoona dhabaantii dhibaato aad u weyn ku hayd ma iyo in maadaama uusan tuuladiisan ka helin waxbarasho toos oo la xiriirta dhanka computerska iyo waliba technology-ga midanoona dhanka kale marka loo eego waqtigaas ay aad u adkeedeen la helo waxyaabaha la xiriira technology-ga si ka duwan sida wadamada reer galbeedka sidaas ay tahay ma ayaa dhanka kale mid waxbarashadiisa kale halkii ka sii watay ayadoona waqtigaas uu baxay naanaysan habbooni ma oo ilaa waqti xaadirkan loo yaqaano ugu dambeyntii markii la gaaray 1980-maadkii nasiib wanaag waxa dhacday in Boni iyo qoyskiisa ay u soo wareegaan magaalada lagu magacaabo Shenzhen oo waqtiyadaas ay mid si xawli ku socotay dhanka waxbarashada iyo waliba dhanka technology-ga midanoona yaraankii Boni siisa fursad ah inuu kaga dhabeeyo riyadiisa ay inuu galo caalamka technology-ga asagoo ugu dambeyntii halkii ka bilaabay waxbarashadiisa computer science-ka oo uu ka qaadanayay jaamacadda lagu magacaabo Shenzhen University sida yaataba ninkan ugu dambeyntii dhistoona boqortooyadan ay balaayiinta qof isticmaalaan ayaa la sheegay in waqtiyadiisa waxbarashada waa wiil iska degan sidoo kalena aad u taxadar badan midanoona xitaa aad maanta marka la joogaad ka dareemi karto iyo in sida maalqabeennada kale uusan jeclayn soo muuqashada uu ka soo muuqanayo warbaahinada asagoona Boni waqtigiisii ugu kaliya mid diiradda saarayay sida uu u dhisi lahaa cilmigiisa technology kaasoona ugu dambeyntii ka caawin doona dhisida boqortooyadiisan aan maanta naqaanay TENCENT sida yaataba qalin jabintiisii kadib ma ayaa qaaday wadadiisii ugu horeysay asagona waqtigaas u shaqeeyay company isgaarsiin si uu xirfadiisa isgaarsiin oo isla markaas kor ugu qaado sida yaataba dhanka kale waqtigaas internetka ayaa mid bilow ah sidoo kalena aan aad u soo shaacbixin ayadoona dhanka kale internetku waqtigaas samaysnaa qaab reer galbeednimo ah oo aan wax shaqo ku lahayn China iyo wadamada kaleba maadaama ay wax walba xagaas ka bilowdeen ayadoona isticmaalayaasha China ay u baahnayeen isbedel aad u weyn isbedelkaas oo isla markaas la xiriira luqadooda iyo waliba dhaqankooda waxyaataba waa meesha uu ka soo galay xalinta dhibaatadaas hadaba isla waqtigaas ma ayaa si kadib u daafeeyay aaladan oo lagu magacaabo ICQ aaladan oo ahayd aalad internet oo laga wada sheekaysto waliba si qoraal oo laga lahaa company Yahuudi oo ku yaala wadanka Mareykanka ayadoona ICQ ay waqtigaas ay mid bedelaysay qaabka ay dadka China u wada xiriirayeen waqtigaas dhanka kalena ay ahayd mid ku dhex fidaysay guud ahaan wadanka sidaas ay tahay dadweynaha China ma aysan aaladan aad ugu qanacsanayn sabab la xiriira in abkan uusan dabaqayn luqadda wadankooda laakiin ma oo arrinkaas ku baraarugsanaa ayaa isla markiiba halkii fursad ka arkay asagoona ugu dambeyntii isku diyaariyay dhisaaladiisa internet ee uu qaaska wadankiisan ugu dambeyntiina taariikhda markaad 1997 Boni ma iyo saddex kale oo saaxiibadiisa ayaa si toos u daafiyay company-goodii internet kaas oo ku dhiseen lacag gaaraysa 120,000 oo ay waliba soo deensadeen xisaabtan ku darso waqtigu waa waqtigii uu Asia ka tagnaa dhaqaale burburkii ugu weynaa oo waxa dhacaysay in businessyo badan ay waqtigaas albaabada u laameeyeen sabab la xiriiraya dhaqaale daradan xoogani laakiin sidaas ay tahay ma ayaa asaguna mid u bareeray qasaaraas halkaas oo ugu dambeyntii asaga iyo groupkiisan ay bilaabeen inay ku asaasaan aaladoodii internet ugu horeysay oo ICQ aaladan ay ugu talagaleen inay bedesho aaladii hore loogu isticmaalay wadanka ee lagu magacaabay ICQ sidoo kalena laga lahaa wadanka Mareykanka hadaba aaladan lagu magacaabo ICQ ayaa sida muuqatay ay ugu talagaleen inay suuqa kaga saaraan aaladii hore ee ICQ oo waqtigaas ay aalada message ugu weyn ayadoona dhanka kale ay wax walba iska cadaayeen sababtoo ah hore soo sheegnay dadka China ayaa waqtigaas u baahnayeen aaladoodan u qaaska sidoo kalena dabaqaysa afkooda iyo waliba dhaqankooda maadaama aaladan hore ee ICQ aysan hayn aalad ayaga loo sameeyay waana sababta keentay in Boni ma iyo asxaabtiisana isla markaas ku gareeyaan aaladan ICQ sidoo kalena qabsatay wadankan laakiin ugu dambeyntii midan ayaa soo jiidi doonta dhibaato aysan marnaba filanaynin sidoo kalena gilgili doonta company-goodan ay diinta ku aasaaseen
sida yaataba intaan la gaadhin waxaasoo dhan Boni iyo companigiisa yaraa oo ICQ ayaa isla markiiba howlgalay ayagoona halkii ku koraysay xafiiska ku raqiisanaya ay ka helayeen aagaas halkaasoo inay ugu dambeyntii kusoo shaqageliyeen aaladoodii message oo ICQ haddaba isla muddo yarun kadib soo saaridoodii waxaa dhacday in abkii uu nasiib wanaagu muddo yarbu ku dhex fido wadankii China ayadoona dadyowgii Chinese-ka ay aad u jeclayseen abkan wada sheekaysay ee dabaqaya afkooda midaanoona keentay in isticmaalayaasha ay mar kasii dambaysa sii kordhaan waxay yaataba laakiin waxaa jirtay dhibaato kale oo aad u weyn dhibaatadaasoo ahayd inkastoo ay abkan isticmaalayaashiisu ay mar kasii dambaysa sii siyaadiyeen haddana midda kale ee meesha taale ayaa ahayd in Boni iyo asxaabtiisa aysan haba yaraatay wax lacag ka sameynayna aaladoodan waqtigaas midaanoona ayagaba dhibaato ku ahayd iyo in ayagaba laga rabay in adeegyada uu abkan ku shaqaynaya ay meelun ka keenaan taasoona dhalinaysay in mar kasii dambaysa uu abkan hawada sii galaba ay sidoo kale lacagta ku baxaysa abkan ay iyadna hawada sii galaysay waxay yaataba laakiin dhibaatadoodii ugu weynaa ayaa timid kadib 9 biloodun bilaabashadii kambanigoodan dhibaatadaasoo ahayd in warqad ay uga timaaday company lagu magacaabay ICQ ee ay ka koobi gareeyaan magaca iyo fikradaba asagona companigan ugu hanjabay inuu maxkamadayn doono companigoodii oo ICQ sababo la xiriira in magacooda ay isticmaaleen sidaas darteedna ay ku maxkamadayn doonaan xisaabtana ku darsa Boni iyo asxaabtiisa waqtigaas wax lacag ay ku dagaalamaan ma haystaan sidoo kalena ay maxkamad iyo dacwo ku bixiyaan midaanoona ugu dambeyntii dhalsay inuu ku qasbanaado inuu magacii ka bedelo sidoo kalena uu companiga u bixiyo magaca QQ sida yaataba waqtigu waa bilowgii 2000 Boni iyo companigiisa TENCENT ilaa waqtigan lacag ma sameynayaan walow ay isticmaalayaashu waqtigaas ay gaadhayeen malaayiin qof ayadoona dhanka kale ay TENCENT u harsanaydo kaliya 3 bilood inay meel bannaan soo istaagaan sidoo kalena ay albaabada u xidhmaan guud ahaan companigan haddaba saaxiibayaal intaan ugu gudagelin qaybta xigta ee muqalkenan fadlan ha ilaawin inaad ka mid noqoto asxaabta qaaliga ee ugu xidhan sidoo kale haddii uusan notification ku furnay fadlan ha ilaawin inaad hadda furato si aad u hesho muuqaalada xiisaha badan ee halkan kusoo gudbino aan gudagelno muqalkeena haddaba su-aasha ilaa waqti xaadirkan taagneed ayaa ahayd sidee ayay isticmaalayaashoodan malaayiinta qof ugu bedeli doonaan lacag haddaba waa marka uu Boni qaatay go'aanka inuu gebi ahaanba iska iibiyo companigiisan laakiin arrinka kale jirta ayaa ahayd in qof iibsanaya aysan jirin companigan waqtigaas sababo la xiriira in TENCENT aysan waqtigaas lahayn baa awoodii kusii taagnaato ayadoona company walba oo lagu dayo si cad u diiday heshiiskan midaanoona ma ku qasabtay inuu ku kalsoonaado companigiisan sidoo kalena uu usii dhabar adeego ugu dambeyntiina nasiib wanaag waxaa dhacday in uu halkii kula kulmay maalgeliyayaal diyaar u ah inay maalgeliyaan companigiisan ayadoona marka ay labadan shirkadood lagu kala magacaabo IDG iyo BCCW ay arkeen shacbiyada uu leeyahay companigan TENCENT iyo waliba sida uu mustaqbal u leeyahay companigan ku maalgeliya lacag gaadhay $2.2 milyan oo dollar ayagoona ku bedeshay lahaanshaha 40% oo ka mid ah companigan ayadoona ay TENCENT halkii ku badbaaday waliba waqtigii loo baahnaa sababtoo ah haddii aysan labadan company waqtigaas ka soo gaadhi lahaayeen maanta ma aynaan maqlin companiga sidoo u weynaa TENCENT sida yaataba TENCENT ayaa haatan la dhihi karaa inay hor u sii socon karto maadaama ay maalgeliyayaal iyo waliba isticmaalayaan aan xad lahayn haystaan laakiin haddana sidaas ay tahay waxa weli meesha taagnay dhibaatadii ahayd lacag samaynta oo ilaa haatan TENCENT wax lacag haba yaraatay kama aysan samaynin platformkeedan QQ walow platformkan uu shaqaynayo muddo sannado ah midaanoona waqtigaas marka la joogay aad u adkeyd dhanka kalena uu Boni mid isku day si walba platformkiisan u monetize gareyn lahaa ha noqoto xaysiimo subscription iyo waliba qaab walba waqtigaas la adeegsanayay laakiin nasiib xumo qaababkaasoo dhan ma aysan noqonin kuwa shaqeeya ilaa ugu dambeyntii uu maalmaha ka mid ah Boni uu ka war helay in platformkiisan QQ uu adeegsan karo goob ay isticmaalayaashiisan kaga iibsan karaan waxyaabaha yaryar sida hadiyadaha bombalayaasha iyo waliba productyo kale oo badan kuwaasoonan wax lacag oo badan kaga baxaynin asaga iyo diyaarinta productyadan yaryarba sidaas lidigeedna uu productyadan yaryar uu faa'iidaan inaba caadaan uu ka samayn karaba dhanka kale waxyaabahan yaryar ayaaba sii kordhinaya xiriirka companiga iyo isticmaalayaashiisaba tusaale ahaan maalmaha qaadka sida maalinta jacaylka adduunka oo kale waxaa dhacaysay in isticmaalayaashan QQ ay isweydaarsadaan malaayiin ubaxyo ah kuwaasoona la isku weydaarsanayay qaab digital ah ayadoona isla markaas ay faa'iidadu si toos ugu dhacaysay TENCENT ugu dambeyntii 2003 TENCENT ayaaba ahayd mid waxyaabahan yaryar ka samaynaysa lacago toos ah sidoo kalena gaadhay malaayiin dollar waxay yaataba laakiin inkastoo TENCENT waqtigaas samaynaysa lacag fiican laakiin ma ayaa haddana ku baraarugsanaa in hal product oo kaliya uusan marnaba dhisaynin boqortooyo dhamaystiran hadaba waa markuu ma bilaabeen boqortooyadiisan TENCENT uu sii fidiyo asagoona ma u wareega meel aan laga filaynin iyo video gameska sababtoo video gameska ku doortayna ay ahayd inuu aaminsanaa in dadku ay ku caajisayaan kaliya wada sheekaysiga isla markaasna ay dadku u baahan yihiin madadaalo toosa sida gameska oo kale dhanka kale su-aasha waqtigaas taagneed ayaa ahayd siduu ugu soo biiri doonaa caalamkan gameska weliba asagoon xirfad buuxda u lahayn sida uu u shaqeeyay caalamkan gameska iyo dhanka kale siduu ula tartami doonaa shirkadahan hore ugu soo jiray sidoo kalena hore u qabsaday industrigan
Hadaba waa markuu maal yimaado maskax buuxda sida yaataba intuu dhislaa game dhamaystiran bilow ilaa dhamaad midaanoon ay ku baxaysa lacag aad u badan iyo waliba waqti badan ayadoona waliba la isku iibin faa'iidada dambe ma ayaa bilaabay in kaliya uu sharciyeysa game hore oo ka jiray wadanka South Korea si uu isla markaas platformkiisan QQ ugu isticmaalo ayadoona horaantii uunan ma wax dana kalayn koobi gareynta iyo isticmaalida game-kan la leeyahay ujeedadiisa ugu weyn ay ahayd oo kaliya sida uu dhislaa system hadaba mid kale waalida ayaa ahayd sida ay TENCENT soo bandhigaysay game-keedan ayadoona qof walba oo isticmaalaya aaladan QQ uba si fudud kula qabatiimay sidoo kalena uu gamer ku noqonay waliba asagoon iska warhayn ayadoona uusan qofku u baahnayn ba ab kale oo cusub uu soo degsado si uu ciyaaro game-kan waxay yaataba system-kan in dadka lagu dhaxayo TENCENT ayaa ugu dambeyntii isku bedeli doona mid aan weliga qiyaasi doonin ayadoona waqtigaas ay wax walba bilowayeen oo kaliya sida yaataba 2003 TENCENT ayaa sidoo kale soo daafayday software-koodii QQ Fantasy game-kan oo ahaa mid aan hore loo arkin sidoo kalena qof walba ka dhigay mid addicted ah ayadoona game-kan waa mid loo ciyaarayay group mid aan keenaysa in xitaa qofka aan hore u ciyaarin wax game ah uu markan ku qasban yahay inuu ciyaaro game-kan sababtoo ah marka uu qofkan ka warheelo in asxaabtiisa oo dhan ay markan ciyaarayaan game-kan midaanoona keentay in halka markii hore ay dadku soo galayeen hal siyaabood oo wada sheekaysiga uuba markan qofkii uu soo galaya laba siyaabood oo kala duwan halkaasoo TENCENT ahayd mid marba marka si dambaysa ay hawada isku sii shareereysay ayadoona ahayd mid la wareegaysay guud ahaan shirkadaha gaming-ka yaryar oo dhan halka sidaas la mid ah TENCENT ahayd mid ayadoona aasaasanaysa tiimkeeda qaaska sidoo kalena uu soo saaray game-kooda sidoo kale taariikhdu markii 2008 TENCENT ayaa dhanka kale la wareegtay shirkado kale oo game oo waaweyn sida Riot Game Maker iyo waliba League of Legends ugu dambeyntiina markii la gaaray 2010 TENCENT ayaa ahayd mid aan haba yaraatay waxba laga qaban karin waliba marka la joogo caalamka gameska ilaa ugu dambeyntii kala kulantay caqabadoodii ugu weyneed caqabadaasoo ahayd moobilada smartphoneska hadaba soo shaabicidii taleefanada smartphoneska waxay keentay in dadkii si aan inaba caadi ahayn uga tagaan desktopyada ay isticmaali jireen sidoo kalena ay u wareegsadaan taleefanadii midaanoona walwala aan la qiyaasi karin kuridii shirkadii TENCENT iyo waliba asaaseedii Bonima ayadoona haddii aysan TENCENT waqti xadirkan u wareegin taleefanada uu kambanigoodii lagu magacaabayay QQ ay sanadadaas oo dhan ka soo shaqeynayeen uuba dhul ka geli karo midaanoona keenaysa in haddii aysan TENCENT isbedel samaynin waqti xadirkan uu wax walba ku dhici karo sidoo kalena ayba si fudud ku burburi karaan sidii caadada ahayd ma ayaa isla markiiba ku dhawaaqay isbedel iyo inuu dhisi doono ab wada sheekaysi sidoo kalena ka duwan abkii hore ee QQ halkaasoo ugu dambeyntii taariikhdu markaa January 2011 uu ku dhashay abkii gilgili lahaa China iyo waliba wadano kale oo badan abkaasoo loo yaqaanay WeChat hadaba WeChat ayaa waqtigaas ah oo kaliya ab iska caadi ah sidoo kalena loo sameeyay qaab wada sheekaysi oo qoraal iyo sawir ah ilaa ugu dambeyntii isbedelkii weynaa dhacay bishii shanaad ee sanadkaas markaasoo inay WeChat ku dhawaaqday feature-keedan coduubida midaanoona xalisay dhibaato badan oo haystay dad yoga Chineseka sababtoo ah dad yoga Chineseka ay aad u adkeedeen qoraaladan tirada badan ee lagu qoray taleefankan keyboardskiisu aad ka u yar yahay qaadsan dadka waaweyn midaanoona markay timaado coduubis qof walba ku raaxaysanay ayadoona oonan wax waqti oo dambe uu ku luminayn inuu qoro qoraal dheer ugu dambeyntiina muddo isla bil la arkay dad yoga Chineseka uu qof walba afka ku hayay taleefankiisan asagoona hawshiisa dhanka kale ka haysta midaanoona dhalisay application-kan WeChat isla muddo hal sano iyo badh ku gaaro isticmaalayaal kor u dhaafay 100 milyan oo shakhsi dhanka kale ma ayaa bilaabay qorshe kale oo ah sida uu application-kiisan WeChat ugu bedeli lahaa platform aan loo isticmaalin oo kaliya wada sheekaysi sidoo kalena loo adeegsado meelo badan oo kala duwan ayadoona isla 2013 uu bilaabay isbedelkan ah in WeChat uu noqdo ab ka qayb qaata nolosha dadka Chineseka oo dhan midaanoona tallaabadii ugu horeysay oo ku dhaqaaqay isla sanadkaasuun tallaabadaasoo ay lacag bixinta digitalka ayadoona la adeegsanayo QR code-ka midaanoona ahayd oo kaliya bilowun ayadoona marka maanta la joogo WeChat dad yoga Chineseka uga dhigan yahay ab noloshooda oo dhan la xidhiidha sidoo kalena aysan marnaba sinaba uga maarmin ha noqoto inay lacag ku bixiyaan inay taxi ku dalbadaan inay dhakhtar balan kaga qabsadaan inay wax ku daawadaan iyo waliba wax walba oo maskaxdaada soo galaya ayadoona abkan uu dadweynaha China uga dhigan yahay Facebook WhatsApp Uber Amazon Instagram Netflix dhammaan ababkaas oo dhan oo la isku daray sidoo kalena la isugu geeyay hal application oo kaliya This would be like the equivalent of following their newsletter, for example. But nobody in China really uses emails very much, so they're more likely to use WeChat to follow brands that they're interested in. midaanoona dhalisay shakiyo badan oo ku aadan companigan iyo in la isweydiiyo awood intee leeg ayuu leeyahay sidoo kalena uu yeelan karaa companigan TENCENT laakiin jawaabta ayaa mid iska cad ayadoona bilowgiiba uu companigan caamil loo ogolaaday inuu heerkaas gaadho sidoo kalena uu noqdo boqortooyadan aan marnaba la joojin karin sidoo kalena ku dhex fida nolosha dad yoga China oo dhan hadaba sida la sheegay companigan TENCENT ayaa dowladda Chineseka ay mid intaas oo dhan kor kala socotay siifida waalida uu companiga sameynayo ayadoona dawladda ahayd mid aan haba yaraatay waxaad ku soo rogaynin companigan maadaama uu companigan faa'iido u yahay dhaqaalaha wadanka
midaanuna dhanka kale ay danta ugu weyn ay CCB-du ka leedahay companigan Tencent ay tahay in haddii uu companigan sidii loo baahnaa uu weynaado ay markaas lacag badan ku maalgashanayaan si ay isla markaas kor u kontroolaan companigan iyo weliba isticmaalayaashiisa ha joogaan dal ama dibadba ayadoona dawladda Chineseka ay kaliya danteedu tahay sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd daatadan tirada badan ee Tencent ka haysa isticmaalayaasheeda balaayiinta qofa sidoo kalena ku kala nool dunida oo dhan midaanuna keenaysa in hal hadal oo ka soo baxay inta isticmaalaysa aaladan Tencent uu qiil gelin karo noloshaada oo dhan ayadoona companigan Tencent uu gacanta ka saaray dawladda Chineseka xogta dhamaystiran ee shakhsiga ha noqoto lacagaha uu bixiyo location-kiisa iyo waliba wax walba oo la xiriira qofkan. They're constantly monitored by facial recognition cameras that are able to instantly put a face to a name. Now the Chinese are also ranked. It's aggregating data gathered by banks, private companies and the state to rate midaanuna keenaysa in isla markii aad bilowdaba inaad isticmaasho Tencent aad ba ka diiwaan gashan tahay dawladda China ayadoona mar ka sii dambeysay ay Tencent sii weynaato ay sidoo kale dawladda Chineseka ay awood u yeelanayso inay sii kordhiso kontrolkeeda hadaba Tencent ayaa waqti xadarkan la sheegay inuu shaqeeyaan xubno aad u tiro badan xubnahaas oo shaqadoodu tahay oo kaliya sidii ay u dabageli lahaayeen dadyoga sida xorta u hadla ama ra'yigooda si aan kaga basho lahayn uga hadla ayadoona wax walba ay Tencent aragto ay sidaas la mid kor kala socoto dawladda China midaanuna dhamaantii waaliha kontrolida dadyo ka badan 1.5 bilyan oo shakhsi waxay yaataba sidoo kale Tencent ayaa sidaan hore soo sheegnay baan ku ekeen uu kaliya gudaha China ayadoona companigan waayadii dambe uu bilaabay inuu ka dhaxbaxo China sidoo kalena uu maalgashtay companiyo kale oo aad u waaweyn companiyadaasoo ka dhisan daafaha dunida sidaas la mid ah Tencent ayaa ilaa maanta gacanta ku haysta suuqyada gamingka maadaama ay ilaa bilowgiiba ay hayeen kuwa awoodooda oo dhan isugu geenayay gamekan ayadoona ilaa haatan ay Tencent maalgashatay gameka ugu waaweyn ha noqoto League of Legends, Fortnite, World of Warcraft, Clash of Clans, PUBG iyo waliba Call of Duty dhanka kale kareem shirkadaha kale ee aad ku waaweyn sida Reddit, Discord, Snapchat, Spotify iyo waliba kuwa aan marnaba halkan lagu soo koobi karin hadaba ugu dambeyntii waxaan marnaba la iska indhitiri karin ayaa sida adag ay Tencent ku soo bilaamatay iyo waliba ninkii dhulka ka soo qaaday sidoo kalena ka dhigay boqortooyada balaayiinta dollar ayadoona mid kale ay xusid mudan tahay in aaladii ka soo bilaamatay kaliya message-ka ay waqti xaadirkan isku noqotay boqortooyadan dhan waliba leh sidoo kalena ay si maalinle u isticmaalaan balaayiinta qof ee ku kala nool daafaha dunida hadaba su'aasha taagan ayaan ahayn oo kaliya ilaa heerkii ay gaari kartaa Tencent laakiin ay tahay yaa hor istaagi kara companigan hadaba adiga maxay kula tahay sheekadan waalida ee ku saabsan companigan Tencent sidoo kale shirkaddan Tencent weli hore ma soo maqashay sidoo kale haddii muuqaalkan ku xajab geliy fadlan ay inaad ka war doonto muuqaalkii kan ka horreeyay ee ahaa sheekada waalida ee Formula 1 iyo sida uusan F1 u ahayn oo kaliya tartan balse uu yahay mid filashadaada oo dhan ka weyn hadaba si aad soo daawato muuqaalkaas xiisaha badan fadlan ku dhufa thumbnail-ka shaashada kaaga muuqanaya halkaas ayaa noo balana